gudoomiye marka hore waxaa nooga warantaa xisbiga labiyo toban sanadood buu jirsay xaalada xisbiga nooga warbixin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan hambalyeynaya dhammaan magaranayay xubnaha xisbiga UCD iyo taageerayaashooda meel kasta joogaanba waxaan ku hambalyeynayaa sanadkooda 12aad insha Allah taala xaflad fiican oo sameyn doona insha Allah waxa weeye Ilaahay mahad weey subhanahu wa ta'ala Ilaahayga maanta isoo joojiyay kii xisbiga 12 sano ka bacdi oo la shaqeynayo maalintii aan launch galayna khudbadeedii launch aan ku sameeyay waxaan ku sheegay Ilaahay ka bariyay inay subhanahu wa ta'ala boqolka sare soo sano oo xisbigaas jiro oo muasasiinteeda hadda ay dhaho taswiirahooda 100 years later in la dhigi doono marka maanta waxaan ugu faraxsanaynaa maanta xisbigu da'weynahay marka laga saaro xisbiga udub oo bil laga horeeyay oo meesha ka baxay aad iyo aad baan ugu faraxsanayn ka soo himiladii aan xisbiga u launch galaynay tii labaad aan helin tii kood waxay in Soomaaliland midnimadeeda iyo gool istaageeda in nabadgelyadeeda in la ilaaliyo tii weynaa hilgashay tii ahayd inaanu talada qabanno xisbahan oo aan fikradaha aanu la keenay inuu siyaasadda galno aanu ka hirgelino tii aanu wali noo suurtagelin عندنا واحد لنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال بالنا زمان دوا وقتين وحصان مر دباتوين بدن ما هي حلقة دباتوين كان وإحنا نسيب دارنا نقطة حسبي معارض كلمية مدربين ما كان صاير حسبي أوضب كا مدة بدن وتكا كعنت كواي مدة دافع كل شيء ما كان صاير وقت الدولة ده صدق سنة كل دافتي إنه ما كان صاير إسكاشمي إنه هالكو أصحابتي قرنك صدق حسب ككورين لها إنه تلابد ورسول سمين نقطي إنه صدق على بعض حسب كلا بابيو أضرب كتوها مكان زي كوجوليستي أنا دعوة عادي هو إنه قالتيه إلا هذا الطريق ديسي أنا هايسو وأركسان مركان حسبهان نهاي الحمد لله بهم نهاي لكن مرك قرن هنا شيء ما أنت حسب أوركا عد أن نشكريني ما أنت الفكرة أبورني هتكون يسقى ولا بيسقاشنك ما كده دجال السكر بلابمين عن شركة قبل لندن هل كان العام أنت سومالا ومريض أنت أفتر لبيه لا تنصله يمشي تشوته وحش كلومه مرنا اسمها لبيه لا تنصله كبعد تلكينه وحواي ما كان صار احتراف مرنا اسمه لهن لبيه توسني كبعدي مركان أصحاب الصمينة تلكينه قبيل كلمة قبيل يشير قبيل يشير بلاد يا قبيل بعض مغلي دونتا ما أنت أيوه قبيل كيو بدي أنا كصمينة إنه يشير بلاد كي أي ودين سياسيين رجع ما أنت وقتك عيا بدن كود الكوميا ما ضحتك عيا أنا كأت كان عد مركب صميني أنا على جورو قبيلة مركب قبتني قبيلة سعودية عن سومالا واحد دليل وقبيلة هي corruption عند على 5 سنين كريم مركب الحمد لله رب العالمين كان حسبه في عنده إن قدوم مركب حالة حسبه أنت كسوق قدوم إن واحد فاهمك سيسا حالتها تندرك سومالا مريم إن أردتها أنا أقصد كل وقت وحاوي حالة السومال مرسواتها إنتان بشي جانوري أنا كبل عبي إن ترى لسوي مات ولا تش لسوي مات تلكينا سيدا إنه يلقون بنسكو تاجنا الشركة برعو لو آمي صدح بيوتك بعدي معاذي محافظة وكلام بحنا دقال بعد سو دقال سو شيء تمي بور ما بفرس صدح السجاشك halkaas siyaasiyiintii SM talaga takhalusay oo la keenay maxamed xaj magaciisa naxariis maxamed xaj haddana dagaal baa lagu soo qaaday 19 akhirkiisii waa jiitantay hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa tan ka badbaadnay 97 waqti dib loo doortay iga wax ka bilaabantaa Jamhuuriyadda Soomaaliland asaasan 97 ka bilaabantay marka iga la sameeyay قالوا إحنا نرسي قرن قبيعة ده واحد هنشر قبل بلا نونشري قبل بقول بقولي نونشري لكن ستيت بنو
qaran baan u xubsidanay waxay noo dhistay wixii calaamad u lahaa state waxay noo dhisay calankii waxay noo samay distoorkii waxay noo samay lacagtii waxay noo samay baankii waxay noo samay ciidamadii qaran waxay noo samay booliiskii way noo sameeyey laakiin dee isagoon weli dhamaysan ayuu geeri laha naxariistay halkuu inaga tegay in horta taagana institutionistkii uu bilaabay ee qabyada ahaa maya xoogeysan waqtiga riyaalena maya xoogeysan laakiin halkiisa uu daayay waqtigii sirayna way baabeen oo maanta waxa weeye wixii aynu ku ammaaneen oo dhan meesha ka baxeen waxaa ka baxay doorashooyinkii meesha way ka baxeen oo baarlamaankii lama dooran 10 sano loo kordhiyey 5 sano loo kordhiyey meel ku taala ma jirto guurteena mar labaadkii baa loo kordhiyey oo 12 sano jirta ama oran karna cid bay ka wakiiliyeen labaduba marka waqtigoodii expire garoobay doorashadii u dambeysay waxaa maqan doorashooyinka gowracday in la istilo ayaa loo diyaar garoobay laakiin may samaysan Somaliland marka yimaadeen dawladani waxay habaabanisay in la naseeyo special status waxa la yiraahdo interim status oo aynu adduunka la macaamilo EU da inoo timi report bay qoreen halkan ku yaala waxayna waxa xaq baa intaasoo wadan bayna caawin jirtay oo magaranaysa inay macaamili jiray ilaa 35 waxay haysan jireen MB oo Ingiriisa oo in arinteena ka shaqeyn jiray in ilaa 36 wadan bayna xidhiir la lahayn wixii dhan wala baabiyay maanta waxa la doobiray dawlad marka timi si lacag aan u helo in shirka soo Soomaaliya dawlad goboleed ka qayb galiya anu ka qayb galo waxa loo qaatay marka inaan ka noqonay arinteena wadamada in taageeri jiray South Africa iyo Ghana iyo gidigood way ka baxeen meesha marka maydu ka noqon baan leeyahay wadamada marka ay Soomaaliya heshiino باور شغل قابنو برلمان كفدرال كقريب جلينو وزير رئيس وزراء كحيينك كواد عين لهنا يوزير خارجية أساس على قرنية waxaa intaa noo dheer waxa weeye waddankeenu wuxuu ahaa markii uu halkan ay timi diisiinay dowladdiisu waxay ahayd bariga iyo galbeedku laba level baynu kala ahayn galbeedkeenu level 3 buu ahaa nabadgelyada waa meesha mashaariicda iyo ajnabiga iyo developmentka laga bilaabo burco ilaa barigana 4 baynu nahay ilaa maanta waxay nahay burco 4 baynu nahay waa 4 levelkeed nabadgelyadu hay-adaha ajnabiga ma tegi karaan development projects lama bilaabi karo waxay dawladani inay xooga saarto in horta ay dalka nabadgelyadiisa sinta oo bariga galbeedka Soomaaliya ay noqotaa dhul laga wada shaqeyn karo 22 sano intay jirnay ma yeelin galbeedka baa khatar ku jira maalmo dhawto ogeeyna ajnabi waxa lagu yiri hamarina berberiyo wadada berberiyo Hargeysa diyaarad bal kala qaad jiray wala ka baqay nabadgelyo waa aynka معنيه إنه ما هي سومالها إن لا يلام نبض ضامه فيلمي مرنا ونبض مرنا ويستلام وحوين هرمري ماذا ما أنت وحوين دولتنا واجب كدولة وحوين إن البيسك واحد لا نرش بيسك كذا كشيء كما شقة يسمى أنت والضمر استو بيه ما بحسه والضرورة لا ما بحسه عافي ما بحسه على ضدك أو عشرة دقالين ما أنت هالكم مريو ولي المبارين تذكر تاكو كلفتي كبعض كنا الدولار هيستا إنه في سكو يبسط وكنت إنه في سكو يبسط إنه كيس كنت هريبي كيقولها عندك كي واحد يتجحمه مش كده هيستوى حويه هو ما أنت هيستا والليدرشيب كرايسيس تلاقي ذلك أيام الجريمة عند الله محمد السينايو أكون معك عبيه هاي لكن ترى عيد كلا وضع. كدوية وقت بدن بد معارك صوت هذه اللي تحملها هاتن أحمد محمد السينايو هاتن مدرسة حسنا ودرك كتيني أو حلك أو مدة قعدت كوهي وما دورت إن أدرك شخص هان سيدي كل مقطع وقت هذا كان هو قامت من الحوالي السينايو هذا مدة بدن معارك أصوت هذين. السينايو فشل ما فهمت هذا دون سان شو هو قال كي أسامس هو فشل ما هذا اللي قصه قاعدين سراشن كي عن لكن تجلها ما أنت هو فشل ما صدق حاصل وحيو ماشي أول فيديو واحد وحشاب ولا حشوني ولا أودعيهم فشلنا دتكو يقبل يالدو معينو ده واحد ويا سيد ماشي بين وتقانا
dadkii keenay meesha biishiis u badnay ayaa laga xishoonayay wallahi yani mooyaan reer haan loo eriyay sidii asana intii biray lalahaa ma wada kartid lalahaa reer baa loo eriyay laakiin waa fashilantay dowladdu waa fashilantay mana sii wadi kara dalka labada sane haddii aan saa ku eegano ma wadi karto runta idin sheegaya anagoon shirayna nabceen cidna nabceen marka lagu eego aqaatin muraayad qarannimo iyo wadanimo iyo lexjalo ma wadi karto dowladda intaan ka badan soo karto mar haddaanay golayaashii noo shaqeyneen oo isku milmeen mar haddaanay asxaabtii macaaridku shaqeyneen mar haddaynu ognahay dowladda sinay dadka ka koobantahay inaan dad aan responsibility qaadi karin halka maanta dadka madaxweyne ka urursan mar haddaynu ognahay qofka dalka si toos u xukuma iyo dad gruubka u xukuma aan ognahay oo lagu sheekaysto laakiin public aan soo sheego laba boqor baasha labadu waa la xiray boqor buul madooyo waxa sheegay boqor raabi bar sheego dadka markaa bislaan labadu waa la xiray waxa weeye maanta waxaa la sameeyey madal forum baa la sameeyey faranka anaga ka shaqeynay inaan isku nimaadno 18 June ayaanu wada isku nimi rag aan 20 sano is arag waanu wada tashanay dalka halku marayaan ka tashanay laba arrimood baan sagan labada arrimood lagu mudmo la isla raacay waxay noqotay in dalku meel xaalis mariyo Soomaaliland xaalis mariyo iyo in tale loo baahan yahay ilaa maanta waxaan ka baraynaa waan wada tashan hadda warqadda halkaa ku taala aan hayo waxaa soo qoray 17 bishii 8 2009 waxaan soo qoray madaxweynihii hore noo soo qoray magaalada Sakhiyale waa mudana Ahmed Maxamed Siiraanyo gudoomiyaha kulmiye mudana Faysal Waaya gudoomiyaha xisbiga wuxuu leeyahay marka hore iga gudoona salaan sharaf leh isku sheegi mayno xaaladda dalkeenu halka ay maraysa maanta sidaa daraadeed oo ay waajib tahay in danta dalka laga horeysiya wax kasta waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa in aynu isku nimaadno kulan wada tashi xarunta madaxweynaha maalinta Arbacada saacada 12 bar warqadaas oo soo qoray Riyaale madaxweyne Riyaale intuu noo soo diray telefoon waxaan u baahanahay wada tashano waxaan qoraal ku keen baanan kibirka halkan ka maran qoraalkii buu keen taasayno waxaan ka tashanayna waa kordhintii baahid baarlamaankii guurtii xasay wasaas la wada tashan jiray maanta nin qof mudakari iska daa xusbi iyo iska daa siyaasiin qof mudakaro reer Soomaaliya dan guud wada albaabka meedki karo waa qafs baa lagu xidhay madaxweynaha marka waxa weeye madasha waa aragteen waxa ka taagan dacay xalay toodmisa dumar baa aytamiyay yani wixii Maxamed Siyaad Barre guuloodayaasha marka la ilaa waxa hagaaji propaganda waxa hadda la maraya in imaka wasiirka warfaafinta intuu lacag bixiyo ilaaho macaaradka lacag ha qorina waxa qoraan oo la ilaaho interview ma fayl ka soo qaadnay ma sii deena ma sii deena waa imanaya oo lacag bixiyo waxa gaadhay heer raadiyaha qaranka iyo TV qaranka anaga laga shakhsi caayo maarka laga shakhsi caayo anagu aflagaadana waa ogeeyeen qof cidi shahaado ku qaadatay ogeeyeen lagu siiyay aweye maanta waxa weeye waxa la sameeyay macdantii dalka oo dhan ayaa la boobiya xeer male sharci male baarlamaanku ma fulkin intaasoo kombinaba ay meesha yaacisa waxa la sameeyay ciidan beelada ilaa ciidanka ilaalinta macdanta hada waraabe iyo sanyare wata diblomaati rabshadu ka taagan tahay niman beelo iyo waxaan ilaalina niman cadaan oo ilaalinaya beeri kale ay isqabsanayaan waxay beeshan qura wax ilaalinaysa qabaylki waa ogta xogta ka dhacday waa ogta xariid ka socota waa ogta kalshaal ka socota waa ogta algabarta ka socota waa ogta salaxa ka bilaabmaysa waa ogta taood ka bilaabmaysa balgubad oo wada qabayl shir marka propaganda idaacad barnaamij loo sameeyo been sheegta Maxamed Siyaad Barre kii Ciraaq magaranaysa Aadisalaam Xuseen iyo suxufigii ayaa la arkay runtii laakiin waxay tahay haddaynu maanta aynu tala isku yimaado talada u diiday siiraay anagu cid la hadlay man ciyaarka meesha ku soo urursaday masalan
إن أنا مكرر نقول دونه أقونسن إن مدحوي سوماليا دي absolute مكرر نقول أنا ويصيرتهم لأنه حوي ولا الدورتو أفرتيس قلبي الدورتي أو قراني أو وها مثلا سو كسو كوي مادي لكن ما أنت بيرفورمانس كيسة هذا بور لقى قاعد 15% support مايس ما كانت قبل ذي إكتي قبل قرو ما أنت استويت كيسة أنا يكون هيستا التاجر كاسو قبل سلم كذا أوضل كذا بلو قبيلي كحسي هرجيسة صاحب برعادة وكل شيء كم هايسو 50% بس ما كان بيلا لو يا جماعة تاسوا قوله ما أنت بيش كسوت شيء ولي جوز حتى كلا بحبين أي ما أنت أركنسي حص على بقول كبا تضبط كسور شيء ما كان الدولة دي بريفورمنس كده اللي تشتي متكيد روح وقلي يا ما كان مر بقلي فكان واحد عرقنا إن اللي تشتي متى إن وضعك سيبوط فاشل طاي أي ربنا way gudoomiye waxa jiray siyaasiyiin Soomaaliland ma kulay oo ku buhoobay madashooda tashkiil tuusita qaran intii aan ugu dhawaaqin madashaasna ka hor in adiga iyo rag kalmadasha ku jira waxaad ku baaqi jirteen in shir tala qaran la yeesho qodobada ugu muhiimsan ee doonaysan hadii shir tala qaran la yeesho inaad kaga hadashaan maxaa kamid very good waa su'aal wanaagsan waxa koo laga hadlay waxa weeye dastuurkiina in la furo weeye dastuurkiina waa qabiyo nima soo jecel u macnaysta bal imaka halkay ku taala guurtida isku kordhiso هاي كتالا قورتي وقرياش هو كرديس هاي كتالا قورتي هذول انت إنا كيسو هبتل هاي كتالا هذول نكون انت إلى حاس كيسو هبتل هاي كتالا إما دستورك قدك 84 يا هذي بداية ما نصيبة ما قاعد أيا مدحونا لو كل كرا أي واحد صار لقى الدولية كاسوا كو وحوي قورتي قودة ده أيا لقى الدولية قورتي المركز اللي سميه مدوين واحد أضيال عن سياسيين هن establishment إلى لسه دمت SNM ما كيس خمسين سياسيين SNM يدسوك الحكيسي 93 واحد حوسيبتي يعني نقطه لو ميك وواحد على واحد الشعب الصباح يجوا مرة وما نضيع هاي وضل صوت ورتين ما هو فوت كويميو أغلطه دي مالي إن لقد دولوي لا بس ما صدق حلقة دولية برلمان كينا MB وكيل دينا لبيس ديت لك لو قال هذا فوت لبيس ديتك هاي سنة حبنود شروط دي واحد لما بكون يشنتي إن دور كاس روطة هلو تون ما ونفوت لو صباح أو كرسي كسومالنا أم بها كصباح السيلة أم بلاص أنا بهر جيسي وسوقي من غضا والمجال دي مجدد بلاني أكاس كراسي بلا مجال التدخير وسياد دون كلامه أنت على جهات هذه كلا تورش لبيس ديت كرسي أو دروان كوك عصبنا صدق حيتهم كرسي أنا قاعد صدق حسبه يا جوامي وانكو عصمنا مدحوينه كحيينك كو مدحوينه كحيينكي احمد ياسين ورئيس صحيلها طبعا كرسي وانكو مقسمنا رياله بودي كسو شيء صدح حتى وانكو قسمنا ريال اوضل انا قرك قبنا وهو الدور كاس اوره ان laga tashaaway waxa koo iyadana ta afraad laga tashay waxa weeye saama qaybsigii beeli hareeraha boor waxba lagu soo heshiiyay in organiska wali dooda la qaybsado in key ministers la qaybsado maanta waxa weeye iska daa beelihii hareer kuwii dhexe ayaa isboobay beesha madaxweynuhu maanta inta haysato iyo aanoo kale beesha intaan haysano waxa weeye waxay ku soo laabata 180 ku soo laabata inta maanta maxamed siyaanay joogay inta beeshiisa shaqaale u qoray iyo inta Soomaaliland qoray inta qoray beeshiisa badan maanta meel kasta oo dhaqaale haysta maxamed waxay ka gaadhay siyaanyo musuqmaasuqa inuu u adeeriyahay intuu uga yeelay abdabi oo wiliga wax dhisin oo ma sharafad haysan intuu ila kaale waxaan ku dhiibiyaa airport ka Hargeysa inuu $10 milyan ku sameeyay loo dhiibo oo ay airport ka saddex ma sharafad ma sidin maanta qalabku haysto oo airport ku sameeyay walacagta airport lagu dhis lahaa inda adkaantiisa markaasoo dhan maanta dhaweyto xusiye shahaade يعني أفوينكم من عيو حاسوك ما قال حوي أنك سينايو مدحوين السينايو دل كان حدود لو كونتراك وقاعتين بربريو أنا وين صور تاجية بيش أنا صور تاجي السجن وين صور تاجية وإحنا أباهي كديدي أنا كد وقال ما أنا يرو شاهلة عيال وسوريا ماشي إن السودان في عياله
يعني شعب كل لو كمان تولي يبسني بمانتي انت قول سعوتك مدحوين كحين يقول الله رسيا عبد الرحمن يقول الله رسيا حرس يقول الله رسيا يا يري كوي دولة شعبك لوك شعبك يهانت شعبك الدولة دور لهان جرتي أما وين الدولة دي يارتها أما وين هي هرجيسة له هرجيسة قيبستها لكن ما هنا جروب ولا قاطع ما أنت واحد صوب ناتشر ريسورس كي باشرة حير مالي ولا ستيل دونا هذا وسائل المالية وين كهاو يصير سود دونو بحيو ونو حير ككينين ونو هشيس ككينين ما كان ساعي إن قرياشة أو كومبانياش وحسينيان ضد كلو كباور تسوي يمينيا أسكت إلى علانسها لعقت هورمركا لو هولي ضد كباش لو هجاتينيو شاب لو شبته ولعقت لو استعماله إن سوما لو كالفرفرو معارض لو عايو لو اللي يشد وحما قرتك ما يلحم ضلكم مرة إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر سبحانه وتعالى من هنا قبل بادية ما أنت في دماغه وضع ما كان ساي جروب كماش عايزته في دماغه وضع كل شيء صنيع إلهي نقال إلهي سبحانه وتعالى لكن عندي شيء حسبنا الله ونعم الوكيل ما أنت هل كنت دلكين مرة من الحوي ما راح رسكوه وصل وحن قبيلهين كصبح حماين الدون كويس بدلي دولة بحاجة كسمة سنتين إنجليز وين قلت دولة رسول الله فريا إذا ما لا سمعنا عامل صنع إن إذا ما دين تذكيري ويباهين إذا أنا أبصر على واحد قاني لعب غلط دور وتجيء شغالين مسكح لنا وبتجيسه هالبرء ما كان تجديد إن محل جاي مغشى وح كشغال ودت كيني بوي مسكح دي بالله كحسنية ولا جنوج دي قال جنوجي سياسة دي بديد ملهين من داخلية ملهين من نقال ملهين من تعليمات ملهين لعقتها نكون نيلها سكولة دي إلا ما تقول عليه بالأرض واحد تشون أساس سكولة دي دولتها ما أنت اللي عقت لقيت قاعد في عنا مسمى أنت سكولة واحد ما معلمتي ولا سوي كتجين مش قولوا بحسنين ضيعت لك متشرو واش ما أنت متشرو لا عليه باولك سديد بقول لو عشوري صدقكم على عشوري كبدي بريس ولا بلا لا عقبا كل عقبا بدلوي برعو أقولوا كبدلي لا أسعار ما يدرك هنا إرجال ما يدرك هنا مدعك تكارتي وحوا صعدة إنفليش كي مشهر كوين والصعدة نركو قيمه كعبة وأنا شغالة أنت لا كلية مربى وحول كلية عسكرتين بل أنت لا كروسر أي ممكن دودي يبستي واللي بيجي ولا حوله سيق قنداس كهلا أنا يدحله هي اللي نوسو إيبي إن أبا هنا وكو قال سنانا بالأرض صوترية الملو لك يعني عدنا لك يعني يدت كل ما تسوق النور يعني إلا ما تقول عليه أروتي أنا محاوها تهريبس أروتي تهريب شغلان حتى يرتوان أجنبي وأنا حملنا لكن إيه حريقة بيده ما حمل ما كان أنا كي لبلا أنا في السودان له كي وانك قالنا وشغل ويا كي ساقدنا خيرنا ما لقوا جيو سوق وصمة بطس قلي ما يعني وحياله لا دقي مكان ساعي وكنتي أم بمكان ساعي سيرسكي في النمرة أردن بالينو دادي. كنت من واحد شرتاي دروشين بعد سوما لان كدعي وقتي حكومة دي دايرة على كين دروشين كاس واحد بعتها ميكينين دروشين يقول لها ديجان كي قدام يسير حكومة دنا قبتي دبتين بدل ما كذا شيء إن سيدات أدو أركت إن كوميشن كوقت من شوجا أدرك دورشوا قبل كلام كوميشن غياب ماله دولتي دي الآن يصير شعية الكوميشن عاولها أي مسلمان سكول قاعد وحلا قالي بوليتس بيسوي بسنت بالت بيبرز كويلو كلا كاني خدادي كوسو بحين كلمه الدور كان وقت كوسو بحين سيراي فريدو تدورشدا يعني بالت بيبر كان سنه بين كوسو بحين سيا دورشد دنبو ان كامننا ادوك كامين وقبت سيراي دولدي سو حاران وليجد لو اوغان ماي dadka doorashadii waa nacay asxaabtii waa la nacay wixii aynu sameysano dhan baarlamaanka waa la nacay guurtii waa la nacay institution ka dhan uu inaga baabiyay uu inaga niirid maaha dawladda in dadka lacag ka qorato ta nabad ay lahayd dawladdu waxa lagu baahay horumar baa lagu baahay barnaamij baa lagu baahay bal waqti siyaasadda ka soo fadhiisto maalintan doonanay buu yiri toddoba qof inuu magacaabay ila soo taliya maxaa laga soo koob iyo 20 sano mucaarad heelay maxaa kursi ku doonaysaa ilaa waxa san ku doonayma maalinta ay ahayd inoo aragsi inaanu barnaamij ba wadin
maanta waxa weeye dalku waa isdhexyaa waa bilaa dirawal gaari ninbaa gabiyo lahaa uu seexday naakhud waa dooni waxaan fuushay bilaa naakhuda oo bilaa magaranaysaa pilot ayaan fuushanay laakiin waxa weeye wada tashiga hadduu isku imaan waayo adigays hadduu ima oran waayo inaanu isku nimaadno national dialogue la qabto arrimaha horyaala laga wada hadlo waxaanu sameynaynaa tii public mataqaanaa administration waanu kicinaa dadka ka kacabaananahay siraayo wadanka intaanu fashiyaha laga gaadhay waxaan ku baaqinaa oon shacbiga u yeeri doonaa in la yidhaaho ka kaca beesha laakiin ku daawan mayno inuu annaga nin miisaankiisu way tahay wasiir baa laga dhigay la celiyo dan ummadeed iyo dan ganageenin inuu ummadda kolba intuu qaad bixiyo lacag bixiyo wadaad soo ururiyo u yidhaaho lagaadee aniga xasan ciise jaana ibrahim dhegaweyne maxamed xaashi xasan koore ina koore aabihi waxa weeye saleeman koore ninkii xadka ingiriiska sameeyey xadka dhulbahantay soo mariya wey awogii taarikhdaas u leeyay ilaa maalintan halkaa joogna dalka mu bixin wasiir buu ka noqday dajbaal ka noqday raggayga markuu inta lanaga caayo laydhaha guurtay caaya inta lacag la siiyo oo nin aan ognahay hadduu maanta guurta ka baxo inaanu nala joogo inuu tegayo boosaaso una yidhaha waa tuugo somaliland haystaanoo waa qarindufna wa yidhaha oo laga bixiya lacagta breska ma ogolaanino wasiir yaroo meel uu ka iman jirinoo jaahil inuu annaga oon ku ixtiraana inuu nacaayo waana nagu yidhaha tuug waa khayn hadduu soo dhaafo xadkii uu dhaafay xadkii magaranaysaay dowladnimeed waxaa noqon doona nin iyo nin baa noqon doona siraya snmtsaasaa iska horkeenkaasi jiray uu kala qaban kari waayo ohan waayo waad qardantee joog oo factions maxaa keenay waa go-aan la-aanta waar ka joog waad qaldantee haddaanu wasiiradiisa ciyaal suuqiinta naga qabanin annaga iska qaban doona gudoomiye waxaa jira hay-ado badan oo somaliland ku sugan hay-adahaas waxay ku joogaan magaca soomaaliya wadamadoodiina somaliland waxay ka dalbanaysaa inay ictiraaf siiyaan arrintaasi sidee kula muuqata been bay isku sheegina waxay odhanayaa wakiilka soomaaliya soomaaliya waa wakiilka soomaaliya maxaa beenta horta loo sheegay waa wakiilka soomaaliya soomaaliya meel ay ku taala kaari ku taal ma jiro waxa weeye somaliland khadkeedii layn ku talagalnay ee goonistaagaha siraayo groups way bedeleen laakiin inaga waxba inama sheegin wadayada raacday oo intuu baylotku ruudkii bedelay aanu rakaabka u sheegin laakiin waanu ka horteginaa shirkan hadda jooga insha allah tacaala cusub waa la shaqeynaa in somaliland dib loo soo abuuro oo mowqifkeedi lagu soo celiyo yaan doonaynaa aniga faysal cali walaale waxay la yidhahaan koonfurta yidhaha ma taqaan adiga siina meel ba wada joogtaan faysal meel lama wada socotaan la yidhaha iyaga warkeedana og xafiisaa ka furan magaranaysaa muqdisho halkan laga diray oo ah isku soo dhaweynsaha somaliland iyo soomaaliya ayaa ka socda inagu mushkiladeena waxa wey hoose eega hareertii ma ogaanay inagu magaar iskayna dibadda wax ka socda ma ogay dalkan uu fashilantay dowladdani haddii aydun la hagaajina waa la kala hategaya gudoomiye haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo waxaa jira xukuumaddan haatan markii ugu horreysay waxay furtay wadahadale ay la gelisa dalka soomaaliya oo muddooyin 20 sanadood ay somaliland xornimada haysatay aan wax wadahadale la gelin wadahadalaas markaad eegto dastuurka somaliland siba uga hadlaya waxaa lagaga hadlay iyo sidii dastuurka somaliland ka qabo wadahadaladaasi muwaafaqsan yihiin qodobada dastuurka somaliland iyo ku wajahan wixii aan dan u ahay somaliland horta waxa weeye wadahadalada soomaaliya waa inagu qasbay maana ahayn soomaaliya waxay ka soo qayb galaa shirkii magaranaysaa London February 2011 markay shirki nagu noqotay anigu rag ku taliyaan ahaa ilaa waynu tag Axmed Yusuf yaasiin markaa gudoomiyaha udub markii hore iga horiyay habeenkii hore sanadka madaxweynaha markii aan ku adkaysanay aan tagno oo yaa la oranay waa gardiide waana shir Soomaaliyeed waa oo Soomaaliya lacag lagu raniyay adduunka loo sheegay in ka baxaysa Soomaaliya ku meel gaarka waanu wada shaqeynay saddex xusbi amaga udub jiray iyo wasiirka arrimaha dibadda
qodobka waxaan ku darsanay number 6 ee ka soo baxay shirki in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadasho qodob fiican buu haddana waxaan galnay kii kale ee London lagu galay June isagina waxay noqotay wada hadal anagoo siman in wada hadal haddana doobi baan ku galnay isla June kaas waxaan ka helnay qodobkii hore Somaliland ba ku taray Somaliland government baan ku soo tagnay kelmadda government haddana Turkiga baan tagnay Turkiga haddana waxaan ku soo helnay qodobkii aan raadinayay waliba ka Turkiga أنا أكهم بنجريني ودولة العصوب سي أينو وحي هراء وسيحنا يو واحد دوني يعني إنجليز كيو كي سومالي قاطعني لندن إن كسوق قيب قالوا أنا واحد دي أنا أنتي أنا كاله هوس كليو قدر بنك قيب قابي أنتجي سيدي بشي جانوري أنيري نهوس كره وأنكتجي نوري بنتجي أنا وصلت وعلى حيل تركيا دولة ويتمي وإحنا نقول جلسة ما كده لو جلسة دولة كتركيا إنه قالته كان تركيا لما كان محمد كنت أغني إن نكاه الله إن وحينا عاولنا ستوصل على الله قلب كاسو وكتشرو مكان صايع أنا بقول كتشرو أيام هوسكل أنت أقول هنا وأنت أصلا قلا ما أنت دل كينا وين سنة أنت بدن يعني بقول كينا قاعد سنو عاولنا أينه هلا أينه هيبي سنو أينه أدون كلام عامله أينه إذا ما دري سنو أدار إذا ما هي سنو هو احتراميه إنه strong position يعني حتى ما دور هذا لا قدام بيا الفاينل مركز سنة وحي لا تيجيو هذا قط واحد قرشة سنة واحد أنتوا إنا يركوا سوق على أي باكو سوق روح حمر لحظة لا يا ساي ساسا كمان هذا لنا ويا هي بلو صباح هي بلو صباح هي بلو كرهر يا ود سي إنه واحد قرنه إنه ود ده كسرية سي إنا نقول نقطة قرشة بوليسي سياسة لسان ولا سوق هاي oo sidii qardaasti qof kasta uu xijaabto halka inta ku qorto wiilaa siyaasadda Soomaaliya doona kula hadla waa taas wax la isla ogyahay in noqoto intaas aan u idhee sayiraha meel waxa ka dhahan markaan ka reebnay ayuu canaananaya anu ma diiwada hadan ma diidi ee waxaan diiday qorshalaanta ku tagi jirnay iyo haddana ragnimada waxaan ku keenay faa'iido markaan ay faa'iido keen jirnay dadaal baan ku keen jirnay laakiin qorshe la tagi jiray oo cad oo la wada sidamuu jiray marka taasna waxaan ka قبا سوماليا يديبا أنسنه ومقع يديبا أفر ميلود كلا فريدا أفر تام ميلود وشوبا وعبارة بيدابا كسمايو حمر قروي أفر تام مقع حكوي شيء كبحان مقالنا ساي شير بيلادا 216 كأي سمايستان مقالنا ساي دورشو سينو كلا أو مدحوين دورتي marka inagoo siman oo laba dal laba administration kala ah inaynu sidii 60 ka wada hadalno Allah waa final stage kana wixii dama laga wada hadlaa ay noqoto meelaha aanu ilaahay iskaashano oo iskaashigi la bilaabo biological security aan ka wada hadalno laakiin Somaliland goodbye nabadgeliya kala tagay baybaydeeyo waay waqtigeedii lama joogo وقتين لما تشوفوا تضمين إنه يرى مدبر مالكي يمنا سوماليا ما أقولنا كنا ولا احترافنا أو ما أنت نفشريني بعاش اسطنبول وحي فرار روح لها هوية صعبة هذا يا شريعة أيوة ويبقى قبيل بوجود ما قصي أنا قبيل واقع كانين إنه قلت له بس سوماليا لسوماليا سيل إحنا كي يقول أنت هاي الصور السنة أو ودك قعدت هاو ملايين إنما أنت ودك هنا لحدين قودي سنه لكن دول الدنيا ما كتيرته أنتي إن كل صوت عبلي بابينسا هي الآن دل صوم قلم أو حفيز كسر شقينين أو حسب أهان أو وحبة أهان أي ما تقدر كذا تلاني وين مقرنين ولي وحبانو حيريدنا معك طلع بابي نقولي هذا بستي ديال من كسر شيء كنا لكن واحد صومالي واحد أبسكوا مين هو يجوا بيلاقوا معنا مين لما ما يجوا معنا وان أجنه هاي دل كسر بابي عدانك ولا الصعدة عروتك كاشونس هل اسكولو تكنيكال ما إنه إنسان أي فعلا مجرو أرتداس ياعس ده بروفيشنال سكولز لو لسه ما أنت واحد دار إنه لسه مجرو واحد لين دوتشر كونفورت وين يقول تين شغالين وجود كودي بعد أنا أنت يا ما تكش قيسة هو سوريا كبحر أنت سوريا بريق لسه مية كبحر أي ما أنت وده كش قيسة فرسمة مركب حوي واحد مش يجي ما لاست مش حوي الشعب غير سومالي يعني نن وسير لسيه أو بلا معناه يعني بيجي شيء أنا حمان ما وضنا كوي كل مية كور شيء أنا شريت كور شيء يعني تلك خلق القليل
أنا سيارة ما أنا كارو فيس بدك خليني أنت جورن كهكية مظاهرة أنت جورو يلي وأربعة واحد دون سنة لا اعترافه إن السيرانيو السيران محوا ريالي كتشو يقولوا كلمة حكوا استعمالية أنا نسوا جدا كبدنا ما أنا جايانو كل بشر لي قشنه هذا لو دورتي هذا دل كان ودي سيدنا واد هذيك لو حليت أنا وان جوّب وحمصي ما ودي كله ترى كلام كان لكن أنا ضد عن دل كويلين كأو قالوا من دل كوكو